hogaamiyaha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa ammaan kala duldhacay qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxdiisa gaar ahaan kuwa daada. Macalinka naadiga Manchester City Pep Guardiola ayaa ammaanay ciyaartoyda khibradda leh ee ku sugan Sky Blue kahor kulanka ay wajahayaan maanta kooxda Nottingham United koobka FA Cup. Shabakada Sky Sport ee dalka Ingiriiska ayaa soo xigatay waraysi uu bixiyay macalinka reer Spain kahor kulanka ay maanta la qaadan doonaan kooxda Nottingham United. waxaan haysanaa ciyaaryahano badan oo leh ixtiraam aad u badan. waxaan haysanaa ciyaartoy 10 ilaa 12 sano ku tartamaya koob kasta oo laga ciyaara England. qof walba waxa uu qaadan karaa xilli ciyaareed aan caadi ahayn ama waqti fiican xilli 6 bilood ama dhowr bilood xilli ciyaareedkan ay ka ciyaareen. xidigaha sida Vicente Company, David Silva, Sergio Aguero iyo Nicolas Otamendi ayaa ah nooc ciyaartoyda joogtada ee sanad kasta soo xaadirta halkan. waxaa sii kordhaysa xiisahooda ku aadan in badan ay guuleystaan. guusha ciyaartoyda Manchester City waa mid qabatin u ah. marka aad dhadhamiso guusha waxaad doonaysaa inaad in badan guuleysato. waxaan rajaynayaa inay haatan qaataan fasax muddo bilah sababtoo bishan waxay ahayd runtii bilqaas noo ah, laakiin waxaan doonaynaa inaan mar walba ahaano koox wadada guulaha mar walbaba cagta ku haysa. sidaas daraadeed waxaan inta badan ku faraxsanahay natiijooyinka kala duwan ee naadiga Manchester City ay ka gaartay ciyaaraha tartanka EPL-ka. si walba ay ahaato Manchester City waxay u muuqanaysaa koox raadinaysa awood iyo qaab ciyaareed ku dheehan qaab tactica. sidaas daraadeed waa mid mar walba inoo saamixi karta inaynu noqono kuwa guuleysta. sidaas daraadeed kooxda Manchester City waxay caawa wajihi doontaa kooxda Nottingham United ciyaaraha tartanka wareegga saddexaad ee FA Cup-ka iyadoo u gudbi doonta heerka afraad ee ciyaaraha FA Cup xilli la xasuusto kooxda cadowgeeda ay ka wada dhisan yihiin waqooyiga dalka Ingiriiska ee Manchester United ay xalay 2 gool iyo eber ku martay kooxda Reading halka Arsenal iyo Chelsea ay guul gaareen. markaana Catalonia